السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halka waxaan ka salaamayaa Soomaaliyeed Maxamed oo dhan idilkeed meel kasta aad ku nooshiin dalka iyo dibadda. Aniga oo ah Xafsa Cabdinaasir Maxamed Barre oo Sharma Boy walaashiis hooyadiis iyo aabiis dhaleen. halka waxaan kala hadlayaa ciidamada akoomada iyo baaqulayaasha furtay lagu tuugsado oo ku haya Sharma Boy waa xanuunsan yahay qaaraan buu u baahan yahay Sharmaaka qaaraan uma baahna idinkana qaaraan inagama baahna waayo wararkoodana mana matili kartaan anaga walaalihiisa caafimaadkiisana ka warayno wuxuu u baahan yahay ka warayno inaad tuugsiga meel fool xun inaga galo waxa rabtaan aan iska sheegtaan waa wax laga fiican yahay waxa way wad ka soo daashay rag iyo dumarka ka sheekeyn jirteen guriga tani waa Sharmaaka Cabdinaasir walaashi magaceedu saxdaxani waxa la dhahaa Xamdi Cabdinaasir Maxamed Barre waxay la dhalatay fanaanka caanka ee daada yar kaasoo waayihii ugu dambeeyay baraha bulshada saameyn culus ku yeeshay hadaba Sharma Boy ayay ka hadashay arrinkiisa maadaama YouTuber caan ah oo sidoo kale ku jiro Shiina Culi iyo sidoo kale qaar kale oo la mid ah oo ka soo jeeda gaar ahaan gobolada Puntland ay ku tuugsanayaan inay lacag u ururiyaan si kastaba ha noqotee Sharma Boy walaashiis Xamdi Cabdinaasir ayaa arrinkan ka faalootay iyadoo sheegaysa in arrinkani waxba kama jiraan ku sheegtay arrinka Sharma Boyna ay meel iska dhigtay maadaama ay raggan la qabiilahayn si kastaba ha noqotee Sharma Boy ayaa sheegtay in xaalkiisa hadda wacan yahay sidoo kalena laga shiray ama odayaashiis afkarteen labada beelood ee ka soo wada jeedaan Sharma Boy sidoo kale inantii nabarku ka gaaray ee gaadhiga ku dhaawacantay sidoo kalena si kastaba ha noqotee Xamdi Cabdinaasir Sharma Boy walaashiis ayaa arrinkan ka hadashay iyadoo digniin u dirtay dhammaan YouTuberska ku baahaysan ama lacagta been abuurka ku urursanaya in arrinka Sharma Boy wax laga tarayo hadaba warbixin kooban iyo faalooyin xaqiiqada dhabta taabanaya ayaan ku soo gudbin doonaa saaxiib ugu horreyn waxaan kaa codsanayaa inaad nagu soo dhawaatay marka hore oo janaalkeena subscribe dhexdin adigoo like saaraya muuqaalka siina share gareyn oo la wadaaga asxaabtaada kugu jirta gaar ahaan baraha bulshada sida Facebook iyo sidoo kale YouTube ama ha noqoto WhatsApp aaladaha ugu isticmaalka badan tahay fadlan muuqaalka sii gaartay ugu yaraan hal qof mahadsanid hadaba tani waxa la dhalatay ama waxa la dhashay Sharmaaka Cabdinaasir oo ah fanaan daayar Sharma Boy oo ah fanaan daayar kaasoo ku haysta afafka raabka si kastaba ha noqotee dhacdo aad u xanuun badan ayuu baa qabsatay labadii wiig ugu dambeysay mar laga wariga in YouTube-kiisa wax ku soo gudbin jiray ama heesaha talentigiisa ku soo gudbin jiray uu qacanta ku dhiga Daahir Cali Sow isagoo u dhiibeen asxaab kale oo la mid ah kuwaasoo ka soo jeeda taageerada weyn ee Sharma Boy ku gaaray iyo hadafka weyn ee culis uu taabtay sidoo kale Sharmaaka Cabdinaasir walaashi waxay sheegtay oo loo garan oo yahay Sharma Boy in lacag lagu urursanayo dhammaan dadka Soomaaliyeed taasoo barihii ugu dambeeyay social media qabsatay dadka ugu caansan gaar ahaan kuwa isku qabiilka yihiin maadaama Sharma Boy arrinkiisa noqday mid aad u culus si kastaba ha noqotee arrinka Sharma Boy ayaa noqday mid aad dadka Soomaaliyeed uga naxeen maadaama arrinkii hore ay la yaabneen kaasoo lacag dhan $12,000 uu ka xanibay Daahir Cali Sow oo ah runtii nin xagga internetyada iyo sidoo kale teknoolajiyada aad ugu sareeya si kastaba ha noqotee Sharma Boy ayaa dadka Soomaaliyeed u gargaari rabeen laakiinse arrinkan ayaa waxa diiday oo ka soo horjeestay dadka uu ka dhashay iyo sidoo kale familkiisa ka soo jeeday sidoo noo cadeysay walaashii Xamdi Cabdinaasir muuqaal laga soo duubay iyadoo arrinkan ka sheekeynaysa ayaan xagga hore ugu soo tusnay hadaba annaka oo habahda xog bixinta wararka iyo sidoo kale dadweynaha aadka u tiro badan ee halkan ku jira mar walna la socda barnaamijyada ayaan waxaan u soo gudbin rabnay xaqiiqada dhabta ah arrinka Sharma Boy in lacagtan ee zaxtay loo ururino iyo sidoo kale inay faraha kala bixin dadkii ku tuugsanaya lacagtaas si kastaba ha noqotee Sharma iyo sidoo kale dadka familkiisa xiga gaar ahaan dadka uu la dhashay mid ka mid ah wariyaasha loogu jecel yahay geyga Soomaalida kaasoo lagu magacaabo Maxamed Soofaysan ayaa arrinkan ka soo horjeestay iyo sidoo kale Xamdi Cabdinaasir hadaba Xamdi iyo sidoo kale Soofaysan iyo arrinkan waxa diiday in arrinkan Sharma Boy laga hadlayo uu yahay mid been amuura sidoo uu sheegay mid ka mid ah dadka YouTuberska ugu waaweyn kaasoo lagu magacaabo oday soo tabay Shiina Culi hadaba halkani waa janaalkeena xog bixinta wararka saaxiib dad nagu cusubtay nagu soo biir oo ka mid noqo kumanaanka kun ee qof ee si joogtada u hela warbixinada iyo sidoo kale warbixinada xasaasigan hal mar walba ku soo gudbino mahadsanid Shiina Culi oo ah mid ka mid ah YouTuberska loogu jecel yahay Soomaalida kaasoo ka faalooda arrimaha ayaa soo bandhigay
arrinkan Sharmaboy kadib markii uu gurmad u sameeyeen laakiinse faamiliga uu ka soo jeeday Sharmaboy ayaa arrinkan ku tilmaamay mid aanay niyadda ka jecleen taasoo reerkooda ay sheegeen in aanu arrinkan ama lacag urursi uga baahnayn Sharmaboy si kastaba ha noqotee Shiina Culay oo ah ninkii soo bandhigay barnaamijkan ayaa faraha kala baxay sida uu ka cadeeyay baraha internetka uu isticmaalo iyo sidoo kale bogagga Facebook iyo YouTube halkaas oo qoraallo dhaadheer ku baahiyay arrinkan ay faamiliga ka soo jeeday Sharmaboy soo waceen kadibna ay dhaheen faraha kala bax haddii aad tahay ninka Shiina Culay si kastaba ha noqotee arrinkan ayuu shaaciyay dhowrkii saac ugu dambeysay arrinka halkaas lacagtii lagu rusnay waxa laga xalnimi doonaa lacagta Sharmaboy maadaama faamiligaasi ka soo jeesteen lacagdan xaddigeeda uu ku sheegay $5,500 lacagtaas oo xadda aan xaniban السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكا waxaan ka salaamayaa Soomaaliyeed Maxamed oo dhan idilkeed meel kasta aad ku nooshiin dalka iyo dibadda aniga oo ah Xafsa Cabdinaasir Maxamed Barre oo Sharmaboy walaashiis hooyadiis iyo aabihiis dhaleen halka waxaan kala hadlayaa ciidamada akoomada iyo baaqulayaasha furtay lagu tuugsado oo ku haya Sharmaboy oo xanuunsan yahay qaaraan buu u baahan yahay Sharmaaka qaaraan uma baahna idinkana qaaraan inaga ma baahna waayo wararkoodana ma matili kartaan anaga walaalihiisa caafimaadkiisana ka warayno wuxuu u baahan yahay ka warayno inaad tuugsado meel fool xun inaga galo waxa rabtaan aan iska sheegtaan waa wax laga fiican yahay waxa way wad ka soo daashay rag iyo dumarka ka sheekeyn jirteen guriga